maxaad ka taqaanaa gantaalada ka yaabsaday dunida oo ay Falastiiniyiinta isticmaalayeen saddexdii maalin ee duqeymaha ay ku socdeen Gaza? Saddexdii maalin ee ugu dambeysay oo ciidamada Israa'iil ay gantaalada ku garaacayeen dadyowga degan Falastiin, gaar ahaan Gaza, laga soo bilaabo waqooyiga ilaa galbeedka magaaladaasi. Waxa kooxaha Falastiiniyiinta ee wax iska caabinta ay bilaabeen in ay gantaalo ku garaacaan gudaha Israa'iil. waxana ay bilaabeen howlgal ay ugu magac dareen Wuxda Tusaaxaad oo u muuqanayay in ay duqeyn karaan halkii ay doonaan, iyagoo duqeymaha ku ekeynaya xayndaabka ka baxsan Gaza. waxana ay hoobiyaal ku weerareen goobaha ay degan yihiin Israa'iiliyiinta ee Gaza ku dhow ilaa iyo meel baxsan oo boqolaal kiiloomitir gaaraya. Gantaalada ay isticmaaleen waxaa ka mid ah gantaalka loo yaqaan Grad oo gaaraya 40 kiiloomitir isla markaana xambaari kara madaxyo qaraxyo oo culeyskooda uu gaarayo 20 kiiloogaraam. waxaa ka mid ahaa deegaanada ay gantaalkan ku beegsadeen sida la ogaaday Soofa, Narcuun, Aynu Taalid iyo goobo militari oo aaggaasi ku yaala. waxaa tallaabada xigta ay ku qaadeen weerar xooggan deegaano ku yaala bartamaha oo ay ka mid tahay Tel Aviv. goobaha ay bartilmaameedsadeen waxaa ka mid ah garoonka Ben Gurion iyo sidoo kale Casqalaan oo ah gudaha deegaanada Israa'iiliyiintu ay degan yihiin oo Gaza u jira 80 kiiloomitir. sidoo kale kooxaha Falastiiniyiinta waxay gantaalo ku ekeeyeen deegaano Gaza u jira ilaa iyo 120 kiiloomitir. gantaalada ay adeegsadeen iyo inta uu mid kasta gaarayo waxaa lagu kala sheegay sidan: gantaalka loo yaqaan Al-Qasim waxa uu gaarayaa 10 kiiloomitir, waa gantaal loo adeegsado iska horimaadyada. Grad waxa uu gaarayaa 40 kiiloomitir, waxana uu xambaari karaa madaxyo qaraxyo oo dhan 20 kiilogaraam. gantaal loo yaqaan Badr ayaa isna waxa uu gaarayaa 160 kiiloomitir, waxana uu xambaari karaa madaxyo qaraxyo oo culeyskoodu dhan yahay 250 kiilogaraam. gantaaladaasi waa kuwa goobta dagaalka ku soo biiray sanadkii hore sida lagu ogaaday daraasaad la sameeyay. waxaa kale oo ka mid ah gantaalada la adeegsaday gantaalka loo yaqaan Buraaq oo isaga gaaraya 120 kiiloomitir, waxana la sheegay inuu xambaari karo madaxyo qaraxyo oo culeyskoodu dhan yahay 300 kiilogaraam. dagaalada ka dhacay Gaza iyo duqeymaha ay kooxaha Falastiiniyiintu ay ku sameynayeen dhinaca Israa'iil waxa ay geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyeed, waxana saacadihii la soo dhaafay la isla gaaray in lagu heshiiyo xabad joojin dhaqanka xalay. dowladda Masar ayaa labada dhinac u kala dab qaadaysa, waxana warar hoose oo la helaya ay tilmaamayaan in Gaza loo ogolaan doono in shidaalka uu gudaha u galo magaaladaasi oo dad fara badan oo malaayiin ay ku nool yihiin. Israa'iil 10 sano ayay go'doomin ku haysaa. waxaa soo baxaya madaxda kala duwan ee caalamka ee sida ba'an u cambaareynaya duqeymaha lagu qaadayo magaaladaasi. dadka cambaareeya waxaa ka mid ah Moses Faki Mohamed oo isaga ah gudoomiyaha Midowga Afrika. waxa uu ku tilmaamay waxa ka soconaya Gaza inay tahay wax bini'aadanimada ka fog oo loo baahan yahay in colaadaha halkaasi ka jira si degdeg ah loo joojiyo.